Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waxaan ka hadli doonaa bunka ama qaxwaha ay Soomaalida u taqaano, meelaha uu ka baxo, xilliyada uu baxo, wadamada uu u baxo, dadka beero, iyo macluumaad fara badan oo ku saabsan bunka ayaan halkaan uga hadli doonaa maanta. Maxaad ka taqaanaa bunka? Bun amaba qaxwi waa miro la jajabiyey oo lagu kariyey biyo kulul, kaas oo dadka cabaan. Sida caadiga ah, bunku waa cabitaan ka mid ah cuntada, kaas oo laga sameeyo miraha geedka bunka. Geedka bunka waxaa lagu magacaabaa coffee. Waxa uu asal ahaan ka yimid waddanka Yemen, halkaa oo la sheegay in lagu cabi jiray qiyaastii qarnigii 15aad. Maanta waxaa soo saara oo ka ganacsada in ka badan 70 waddan oo intooda badan ku yaala gobollada dhulbaraha oo ay ka mid yihiin labada Ameerika, Koonfur Bari Aasiya, Hindiya, iyo wadamo badan oo qaaradda Afrika ah. Labada nooc ee ugu caansan bunka la isticmaalo waxay kala yihiin nooca loogu jecel yahay ee bunka Carabta, iyo nooc kale oo ka khafiifsan oo lagu magacaabo bunka Robusta. Marka miraha kofeega bislaado ayaa laga soo guraa geedka kofeega. Kadib waxaa la qalajiyaa, la jajabiyaa ilaa la beec geeyo oo la dhoofiyo. Caalamka maanta aan ku noolnahay, bunka caan ayuu ka yahay, meelo badanna waa lagu isticmaalaa si joogto ah. Bunka waxa uu leeyahay xoogaa acid ah, waxa uuna firfircooni siiyaa maskaxda dadka, sababtoo ah waxa uu leeyahay aalado loo yaqaan caffeine oo ah mid la qabsasho leh. Miraha kofeega waa kuwa yaryar oo wareegsan oo leh midab madow ah. Miraha kofeega waxaa la burburiyaa si loogu dhex milo biyo iyo sokor. Ereyga bun asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa luqadda Amxaarada ee waddanka Itoobiya. Soomaaliya way soo amaahatay ereygan, laakiin dad qaar ayaa waxa ay ku doodayaan in ereyga qaxwe yahay midka ugu habboon ee lagu magacaabi karo kofeega. Marka la fiiriyo dhaqanka Soomaaliyeed, bunka waxaa inta badan la isticmaalaa galbihii, gobollada qaar, gaar ahaan koonfurta Soomaaliya, waxaa caan ka ah bun iyo cambuulo, daango iyo shaah. Bunka Soomaaliya waa uu ka baxaa, laakiin waddanka ugu horreeya ee bun isticmaalay waa waddanka Itoobiya. Maanta bunka waxaa laga soo saaraa wadamo badan oo caalamka ah. Bunka waxaa kale oo la isticmaalaa qaxwo ahaan, oo dadka Soomaaliyeed aad u isticmaalaan xilliga subaxdii. Daraasado la sameeyey oo ku saabsan bunka. Daraasad bunka oo la ogaaday inuu yareyn karo halista cudurrada ku dhaca beerka. Daraasad cusub oo ay sameeyeen jaamacado ku yaala Britain ayaa lagu ogaaday in cabidda kofeega ay yareyn karto halista xanuunada ku dhaca beerka. Waxaana cilmi baaristan sameeyey jaamacadaha kale ah Southampton iyo Edinburgh, kuwa oo ogaaday in cabidda kofeega ee 3 ilaa 4 koob maalinkii ay yareyn karto halista ah in qofka uu ku dhaco xanuunka waxyeellada beerka. Cilmi baarayaasha ayaa daraasadda ku beegsaday ku dhowaad 500,000 qof oo ku nool UK, waxayna ogaadeen in 21% uu cabidda bunku yareyn karo halista cudurrada ku dhaca beerka, halka 49% uu wax ka qaban karo xaaladaha qofka la ildaran cudurrada ku dhaca beerka. Waxaa aad sare ugu kacay cabidda kofeega. Waxaa sidoo kale ogaadeen waxtarka isticmaalka bunka aan lahayn maadada keenta nashaadka ee qofka ka qaada hurdada iyo caajiska ee caffeine-ta. Waxaa la arkay
inuu sidoo kale kafeega yareyn karo halista cudurrada beerka ee ku dhaca xoolaha sida lagu sheegay daraasadan. Nooc ka mid ah bunka oo ku yar yahay maadooyinka kahwiyel iyo kafeyol ayaa sidoo kale lala xiriiriyay arrintan. Cilmi baarayaasha ayaa natiijo wanaagsan ka muujiyay in waxtar uu u leeyahay bunka marka lagu daro waxyaabo kale